Ma dareenta walwal iyo cabsi marka aanu ku ogeyn qofka dareenka u haysa ama aad jeceshahay sidaasoo ay tahayna uu ka ag dhow yahay adiga. haddii ay jawaabtaadu haa tahay arrintaasi keligaa kuguma eka waxayna ku dhacdaa dad badan sidaadoo kalena way dareemaan. haddaba kama sheekayn doono sida loogu sheegto qofka dareenka u hayso, balse waxaan xal u raadinaynaa in xilligaas ka hor aad la tacaasho culayska ay leedahay arrintani, gaar ahaan wakhtiga qofka ay meel isugu timaadaan. dadka qaarba si ayay dareemaan. kuwo waxaa ku dhaca isku dhexyaac, khaladaad ayay sameeyaan, halka kuwo kalena ay waayaan waxay ku hadlaan, arrinkooda oo dhammina uu noqdo aamusnaan. qaar kalena waa geesiyaal, inkastoo laga yaabo inay sameeyaan waxyaabo ka fogeynaya qofka ay jecel yihiin. marxaladaasoo kale marka ay ku soo marto, raac talooyinkan aan kuu sheegi doono, muuqaalkana aan kugula wadaagi doono. haddaba waa 6 arrimood samee inta aad la joogto qofka aad dareenka qarsoodiga u hayso. lambar 1, weji farxad leh muuji. wax walba waxay ka bilowdaan wejiga, sidaa darteed marka koowaad yaan lagaa dareemin wax isbeddela. dhoolla caddaynta ayaa mar walba ka habboon wejiga aan furfurnayn. qofka aad jeceshahay ee aan kuu ogeyn ha fahmo inaad tahay ruux diyaar u ah wada sheekaysigiisa. mararka qaarna ha is hilmaamin oo fikir dheer ha gelin. waxaa laga yaabaa in maalinta ugu horreysa ay kugu adkaato arrintani, balse marba marka ka dambaysa waad la sii qabsan doontaa. muuji farxad ama qosol. haddii qofka aad jeceshahay ee aan kuu ogeyni aad meel wada joogtaan islamarkaana uu soo jeediyo hadal kaftana ama sheeko qosol ku jiro, noqo qofka ugu horreeya ee qosla. dadku waxay tixgelin gaara siiyaan qofka fahma hadalladooda ama ku qosla majaajilada ay samaynayaan. waxaa suuragala inuu meeshaas ka bilowdo xidhiir fiican oo labadiina idinka dhexeeya, kaasoo ugu dambayn horseedi karaa inaad jacayl u sheegato ama qofkiiba uu ku jeclaado adiga. lambar 3, la dagaalan cabsida. xoog saar neefsashadaada marka aad dareento naxdin dhinaca qalbiga ah. gudaha u qaada neef, kadibna si tartiiba ugu soo saar dibadda. ku dadaal inaad ismashquuliso. haddii aad dareento inaad u adkaysan weydo la joogitaanka qofkan aad dareenka u hayso, waxa ugu wanaagsan ee aad isku midadaalin karto waa telefoonkaaga, adigoo aan ku sii dheeraanaynin ama gebi ahaanba aan saayid isugu mashquulin. ugu dambayn haddii ay ku suuro geli weydo inaad isxakamayso, si macquula uga tag goobtaas inta aysan dhicin waxyaabo fara badani. lambar 4, qodobkani wuxuu la xidhiidhaa isla kii hore ee 3aad. xitaa haddii aad doonayso inaad cabsi darteed la cararto, yaan lagaa dareemin inaad ku dhaqmayso xushmad darro. si akhlaaq fiican ku dheehan tahay uga dhaqaaq meesha. marba haddii aad ku guuldaraysatay inaad xakamayso walwalkaaga, marmarsiyo fiican la imow, raaligelin buuxdana ka bixi tegitaankaaga. lambar 5, been ha sheegin. ha iska dhigin qof aadan ahayn, beenna ha u sheegin si aad u farxad geliso qofka aad jacaylka u hayso. dad badan ayaa khalad sameeya marka ay been sheegaan si ay u soo jiitaan jacaylkooda, laakiin beentaasi waxay sababi kartaa in lagu naco. marka uu wejigaaga runta ay soo baxo, waxaa laga yaabaa in qofka aad jeceshahay uu ku weydiiyo su'aalo sida inaad jeceshahay daawashada filimada dagaalka ah ama noocyo ka mid a ciyaaraha. looma baahna inaad been ka sheegto waxyaabahaas oo kale. haddii aad ka hesho waxaa waa inaad u sheegtaa. haddii aanad ka helinna runta ka sheeg oo marnaba ha sheegin wixii aanad ka helin. ha is odhanin waxaas ayuu qofkani jecel yahay ee adiguna u sheeg inaad la jeceshahay iyadoo aysan dhabka ahayn. waa hubaal inaad heli doonto waxyaabo badan oo aad si saxa isugu dooq ka tihiin. lambar 6, ka taxadar fiirinta aad qofka eegayso. waad eegi kartaa qofka aad jeceshahay ee aan kuu ogeyn, laakiin fiirintu yaysan noqonin mid dheer. aad ku dul fakarto qofka waxoogaa kadib waad fiirin kartaa qofka adigoo aan indhaha ku taagaynin ama si qaabdarra u eegin. tusaale ahaan, marka aad meel suuqa ku kulantaan, si lama filaana ha ka leexin wejiga, hana ka cararin, balse u fiiri si caadiya 2 ilaa 3 ilbiriqsi ugu yaraan. qofku yaanu kaa fahmin inaad culays dareemayso. haddii aad is aragtaan, hana iloobin inaad wax yar dhoola caddayn muujiso. waa intaa muuqaalkeennu. ay hobi inaad ka heli doontaan saaxiibayaal. haddii ay macquul tahay muuqaalka like saar. guulaysta dhammaantiin walaalahay meel kastoo daafaha dunida kaga sugan tihiin.